إنا لله وإنا إليه راجعون سواد حالي مقشين كانساس waxaa ka dhacay laba wiil oo Soomaaliya oo walaalaha midna 15 sano jiro midna 14 sano jiro oo xaafid quraaan ayaa waxay tujiyeen taraawiixdii markay tujiyeen labada wiil ay baxeen waxaa dilay walaalkood oo 20 jir isagiina waxaa dilay booliiskii saddexdii wiilba halkii bay ku dhinteen qisada family-gan ayaa qisa aad iyo aad xanuun badan waxa isku hooyo isku aabbe ahaa labadii la dilay ee wiilka uu dilay marka aabahood ayaa waxa uu dilay hooyadood wiilkaana isku hooyo ahaayeen waxlaa wuxuu ka xanaaqsanaa in wiilashan aabahood uu hooyadii dilay odagiina waa la dilay 10 sano ka hor bay arintaas family-ga ku dhacday marka musiibo xalay dhacday run ahaantii saddex wiil oo Soomaaliya qoys dhan ba halka ku baabay ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un daas waa musiibo aad iyo aad u weyn jannada firdaws Allah ka waraabiyo